بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا جوب سكيلز waxaa qaadanaynaa free training affiliate marketing waa tababar free ah oo ku saabsan xirfadda loo yaqaan affiliate marketing waxa ay ka mid tahay xirfadaha la isugu yiraahdo digital marketing waa xirfadaha casriga ah ee internetka looga shaqeysto waa xirfad ka mid ah xirfadaha ugu muhiimsan ee maanta dhalinyarada shaqo la'aanta ay uga shaqeysan karaan online xirfadda la yiraahdo affiliate marketing waxa ay u baahan tahay kaliya inaad fahanto kadibna aad ku shaqeysato sharaxaad guud ayaan ka bixin doonaa xirfadani sida u shaqeyso waxyaabaha looga baahan yahay qofka raba inuu ku shaqeysto xirfadani ma lacag ayaa lagaaga baahan yahay ma wax kale lagaaga baahan yahay qaabkee ugu shaqeysan kartaa xirfaddan loo yaqaan affiliate marketing si guud markaan u sharaxno qeexitaankeeda kooban waxay noqonaysaa affiliate marketing is how to advertise other people's product or service to earn commission waxaan leenahay waa sida aad xayeysiin ugu sameynayso badeeco dad kale ama adeeg dad kale si aad commission uga hesho marka aan dhahno waa inaad xayeysiin u sameyso badeeco ama adeeg qof kale si aad commission uga hesho isla markiiba waxaa laga yaabaa inay maskaxdaada ku soo dhacdo advertise xayeysiin sidee xayeysiin ugu sameynaya waa muuqaalo lagu laray codad iyo halheysyo waxa la yiraahdo erayo laysku soo aadiye ayaa u baahan tahay maya uma baahnid ma waxaa u baahan tahay in maxaa la yiraahdaa aad u sameyso muuqaalo video editing iyo waxyaabaha la midka ah maya waxyaabahaasoo dhan uma baahnid keliya waxaa u baahan tahay xirfad aad u fudud oo aan kugu tusinayo qeybaha soo socdo ee barnaamijkan ama tababarkan adigana waxaan rajeynaya inaad ka faa'iideysan doonto oo aad ku shaqeysan doonto xirfaddan loo yaqaano affiliate marketing si guud markaan usoo koobno waxaan leenahay waa inaad xayeysiin u sameyso badeeco ama adeeg qof kale ama shirkad kale si aad commission uga hesho waayahay haddaba yuu dhex maraa affiliate marketing waxaan dhahaynaa wuxuu dhex maraa saddexdan qolo ayuu dhex maraa iyaga ayaana lacagaha isku diro lacagana iska faa'iido qolada koowaad waxaa loo yaqaanaa merchant waxaa la yiraahdaa waa shirkadaha badeecada ama adeegyada soo saaro kadibna suuqa geeyo shirkadahaas ayaa waxaa loo yaqaanaa merchant waana qolada bixiso lacagaha loo yaqaano commissionka qoladaas waxaa ka mid ah leenahay tusaale waxaan usoo qaadanaynaa shirkadda la yirahdo Apple ama shirkadda Samsung labadan shirkadood wax ay soo saaraan taleefano kombiyuutarro iyo qalab kale oo electronic ah qalabkaas marka ay soo saaraan waxay u baahan yihiin in laga iibsado si looga iibsado iyaga awood uma laha inay kala gaaraan bulsho malaayiin ama billions qof oo dunida dacaladeeda kala joogo sidaas darteed waxay u baahan yihiin inay qaybiyaan oo ay u dhiibaan shirkadaha loo yaqaano retailers oo ah kuwa tafaariiqda iibiyo kuna iibiyo online-ka sidaasna badeecadaasi ay ku gaarto billions qof oo dunida kala joogta shirkadahan retailerska ah kaliya maahan Amazon iyo Alibaba balse waxaa jiro kumanaan kale oo shirkado oo website ah oo wax ku iibiya internetka si ay wax uga iibiyaan internetka qolooyinkani iyaguna waxay u baahan yihiin dad la shaqeeya oo individuals ah ama shakhsiyaadkaas la shaqeeya shirkadahan retailerska la yiraahdo ama website-yadani ayaa qolooyinkaas waxaa loo yaqaana affiliate waxaa ka mid noqon kara adiga iyo aniga oo waxaan sameysan karnaa team anagoo isticmaalayna aaladaha social mediaha inaan sameysano page inaan sameysano maxaa la yiraahdaa website-yo kadibna shirkadahani aan ka soo qaadano qandaraas ah inaan u xayeysiinayno badeecooyinka iyaga iibiya la yiri kadibna ayna siiyaan linkiga ayna siiyeen inaguna aan sii qaybino aan usii qaybino macaamiisheena oo dunida dacaladeeda kala jooga inagoo ugu dirayna qaabab kala duwan isticmaalayna social mediaha waxa la yiraahdo email marketing iyo qaabab kala duwan oo aan dib ka arki doono qaababkani oo aad dadka ku gaarsiinaysa ayaa waxaa loo yaqaanaa affiliate program marka aad gaarsiiso oo shirkadani linkiga aad ka soo qaadatay aad gaarsiiso macaamiisha u baahan
adeegaas ama badeecadaas oo ay iibsadaan waxaa ku helaysaa wax loo yaqaano commission. sida ay u shaqaysana waa sidaasi waxa loo yaqaano affiliate marketing. waayahay models of payment, qaababka lacagta ay ku bixiso. marka shirkadahani la yiraahdo waxa loo yaqaano retailerska lacaga iskama bixiyaan, lacagaha waxay ku bixiyaan qaabab kala duwan. ay lacaga u bixinayaan qaababka ay kala duwan ay ku bixinayaan waa sidee. waxaa jira qaab la yiraahdo CBS. waxaa la yiraahdaa ama laga soo gaabiyey cost per sale. cost per sale waxaa loola jeedaa marka shirkadda loo yaqaano retailerka ay kusoo siiso linki ay ku tiraahdo linkigan qaybi bejidkaada iyo websiteyadaada ku sheergaray, qofka iska soo diiwaan geliyo ee badeecadeena iibsado ayaa wax ku leedahay. tan waxaa la yiraahdaa cost per sale. shay walba oo linkigaada laga iibsado ayaa wax ku leedahay. haddii linkiyada aad sheergaraysay waxba laga iibsan waayo waxba ma lihid. waxayna isticmaalaan qaacidadan ah cost per sale. waxaa jira qolo kale oo iyaduna ka fiican oo loo yaqaano cost per lead. cost per lead iyaduna waa qayb ka mid ah affiliate marketing oo waxaa suuq geynaysaa badeeco ama adeeg ay shirkadii leedahay. linki ayay ku siin doonaan. waan ku tusi doonaa websaydyada ugu fiican ee la iska diiwaangeliyo si aad dhaqaale uga samayso ama aad uga shaqaysato xirfadani loo yaqaano affiliate marketing. kaliya dhowr step ayaa jirta oo la qaadi doono. step walbo cashir ayaa ka samayn doonaa, balse cashirkani waa si guud hordhac iyo qaabka aad uga shaqaysan lahayd affiliate marketing. aan ku soo laabano cost per lead. waxaa la yiraahdaa linki ayaa lagu siinaa. linkigaas qof walba oo kilik siisay ee gelisay gmailkeeda ama taleefankeeda ayaa wax ku leedahay adiga lacag. waxaa laga yaabaa halkii qof oo kilik siiyo ama gmailkiisa ku qoro linkiga lagu siiyey inaad ku hesho $5 halkii qof, ama aad ku hesho $2 ama $1 ama $0.5. hadba waa qaabka shirkadda ay wax u bixiso ama qaabka ay markaasi iyadoo ugu talagasho qolooyinka loo yaqaano affiliate-ka. qolada kale waxaa loo yaqaanaa cost per install. cost per install iyaduna waxaa isticmaalo shirkadaha applicationada sameeyo Google Play Store oo kaleeto, ama qolooyinka applicationada iyo muuqaalada sameeyo ee iibiyo. mar walba oo la degsado muuqaalkaas ayaa adiga lacag ku leedahay. waa cost per install ama cost per download iyadana waa lahaa. mar walba oo la degsado muuqaalkaas ama la install gareysto ayaa adigana lacag ku heli doontaa. marka haddii aan la degsan muuqaalkaasi ama waxa la yiraahdo applicationkaas waxba lacag kuma heli doontid. balse midka ugu fiican waxaa leenahay waa kanoo kaleeto oo ah cost per lead. linki ayaa soo dhigaysaa, qofaa kilik siinayo. hadduu rabo yuusan iibsanin wuxuu gelinaa taleefankiisa ama gmailkiisa. marar badan ay noo soo dhacda waa aragnaa. taas camal waxaa la yiraahdaa cost per lead, cost per install iyo cost per sale. saddexdan qaab ayaa ugu badan qaababka lacagaha lagu bixiyo oo ay ku bixiyaan shirkadaha loo yaqaano retailerska oo aad u fara badan. website fara badan ayaa jiro. qolooyin waxay iibiyaan digital product, waxyaaba la yiraahdo koorsooyinka, hostingka iyo domainka oo website lagu sameeyo iyo waxyaabaha la midka ah. qolooyin waxay iibiyaan product ama badeeco sida Amazon iyo Alibaba oo kaleeto, iyagoo badeecooyin ayay iibiyaan. marka waa arki doonaa casharada soo socdo qaabka ugu wanaagsan isku diiwaangelin karto iyo websiteyada ugu fiican ee la iska diiwaangeliyo si aad uga shaqaysato xirfadan loo yaqaano affiliate marketing. haddaba requirement maxay yihiin? maxaa lagaaga baahan yahay si aad xirfadan affiliate marketing uga shaqaysato? maxay yihiin waxyaaba lagaaga baahan yahay? waxaa lagaaga baahan yahay kow, internet inaad haysato. maadaama waxaan internet wax lagu shaqeynaa uu yahay, waa inaad internet haysataa. sidoo kale waa inaad haysataa computer, iyaduna waa inaad haysataa computer. sidoo kale application qaar taleefanada ku shaqeeya mobilada way jiraan, balse waxaan kugula talinayaa inaad isticmaasho computer. oo computerka ayaa mar walba ka fiican inaad ku isticmaasho xirfadan affiliate marketing. sidoo kale waa inaad haysataa local and international bangi gudaha iyo bangi dibadda ah. oo sidoo kale waa inaad haysataa waxa loo yaqaano Mastercard oo lacagaha aad ka shaqaysato affiliate marketingka lagugu soo diro. qodobka ugu dambeeya u baahan tahay waxaa waaye skill ama xirfadii loo yaqaano affiliate marketing. xirfadaas waa inaad leedahay si aad ugu shaqaysato dhaqaale badan aad uga kasabto. meelaha qaar waxaa dhici karto xirfadaha qaar inaadan lahayn
ama kugu waqti aadan u hayn inay xirfadahaasi barato, balse waxaan ku tusi doonaa websiteyo laga helo shaqaale kuu qaban doona xirfad walba aa u baahan tahay oo qaab free iyo qaab lacag ahba kugu shaqayn doono. marka guud ahaan mowduucii ama casharkii koowaad ee aan kaga hadlaynay koorskeena ama trainingkeeni ku saabsanaa affiliate marketing intaas ayaan kusoo koobayaa. waxaan idinkaga tegaa sidaa nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. haddii aad ku cusub tahay fadlan janalka subscribe dheh oo la wadaaga asxaabtaada.